Baro Arduino waa casharkeeni labaad waxaa idiin soo diyaari Somtronics. Casharkan wuxuu la socdaa casharkii hore oo ahaa Baro Arduino casharkii koowaad. Casharkan waxaan dhisi doonaa LED Arduino oo LED daari doono oo damin doono. Waxaan isticmaali doonaa laba function oo important ah loo kala yaqaano pin mode iyo digital write. Sida la socotaan Arduino wuxuu leeyahay microcontrollers oo ah Atmega 328B oo yahay maskaxda controleysay boardkaas controleysay oo ka shaqaysiinaysa. Waxa uu kaloo leeyahay USB oo aad ku xirayso computerkaaga kaas oo programka aad qorto ku soo ridayo microcontrollerka maskaxdiisa si shaqo uu kugu qabto. Wuxuu kaloo siin karaa power uu siin karaa haddaad rabto inaad ku xirto circuit kale ama LED ama sensors adamacda inaad ku xirto ayuu leeyahay powerka uu dhiibi karo uu siin karo aaladaha kale waa 5 volt ama 3.3 volts ayuu siin karaa iyo groundkii. Marka aaladaha qaarkoodna waxay ku shaqeeyaan 5 volt qaarkoodna waxay ku shaqeeyaan 3.3 marka waa u isticmaali kartaa midda adiga aad damacsan tahay. Waxa uu kaloo leeyahay wax loo yaqaano digital port oo ah ilaa iyo 14 port ayuu leeyahay oo signalka ama uu ka soo geli karo ama uu ka tegi karo. Waxa uu kaloo leeyahay wax loo yaqaano analog port. Analog portna waa input waaye sida u jeedaan analog in waaye. Signalka waa uu soo galaya. Marka su'aashu waxay tahay maxay tahay digital inputs iyo digital outputs maxay yihiin? Markuu horeysa inaan fahmi karnaa waxa loo yaqaano digital number. Digital numberka waa binary numbers waaye. Binary numberskana waxaa weeye ama 0 ama 1 ayay noqdaan ama hal ama ever. Sidaa la socotaana kombiyuutarada luqadda keliya ay fahmi karaan waxay tahay ama 0 ama 1 keliya ayay fahmi karaan. Waa sida anaga aan ugu hadalna af Soomaaliga oo kale ayaga waxay fahmi karaan 0 iyo 1 keliya wax kale ay fahmi karaan ma jirto. Marka maxay tahay 0 iyo 1 maxay tahay 0 iyo 1 waa voltage waaye. Markaad aragto digital 1 markaad maqasho wax kale ma aha waxay la mid tahay ama 5 volt ama 3.3 volts. Marka haddii digitalka uu 1 yahay waxay ku xiran tahay sida adiga aad u programkas ama wuxuu noqonayaa 5 ama 3.3 ayuu noqonayaa. Markaad maqasho 0 0 wuxuu la mid yahay ground ayuu noqonayaa oo yacni waxa waaye ever ayuu noqonayaa. Marka masalan ka soo qaad waxaan haysanaa nambaradan 10 10 10 10. Marka sidee baan u fahmi karnaa waxa ay yihiin? Computerku wuxuu u fahmayaa markii 1 la yiraahdo wuxuu u fahmayaa 5 volt inuu yahay. Markii 0 la yiraahdana 0 waxba ma jira ever. Sidoo kale 1 5 sidaas oo kale ayuu computerka u fahmayaa. Circuitkana u jeedaan wuxuu isticmaalaya Arduino iyo LED. LED sida hore aan idinku soo sharxay wuxuu leeyahay laba lugta dheer waa anode, lugta gaabana waa cathode. Waxaan kaloo isticmaaloonaa resistor qiimihiisu uu yahay 220. 220 sida hore idinku soo sheegay waxay ka taagan tahay 2 oo red ah, 2 oo red ah, brown oo ah, 1 oo 10 ah. Marka wuxuu noqonayaa 2 2 10 lagu dhiftay marka wuxuu noqonayaa 220 ayuu noqonayaa. Marka pin 13 ayaan isticmaalaynaa sida la socotaan digital pins waxay ka taagan tahay pinka waxaa waaye lugtaas meesha godka ah ayaa la yiraahdaa pin ayna ka timaadaa microcontrollerka ayay ka timaadaa waa digital pins. Digital sida hore idinku soo sheegay waxay ka taagan tahay 1 or 0 1 waxay ka taagan tahay 5 ama 0. Marka pin kastaan isticmaali karnay laakiin hadda waxaan isticmaalaynaa 13 ayaan isticmaalaynaa. Marka waxaan sameynaa pin 13 ayaa waxaan ku xireynaa resistorkii. Resistorka marka faa'iidadiisu waxay tahay korontada ka imaanayso pin 13 korontiga ka imaanayso oo qulqulayso ayuu wuxuu yareynayaa wuxuu ka ilaalinayaa LED-ga ama nalka inuu gubto maadaama nalka uu leeyahay koronto cadadan uu qaadan karo. Haddii korontadu ay ka badato oo cadadka loogu talagalay ay ka badato LED-ga waa uu naga gubanayaa. Marka waxaan u baahanahay resistorkaas si uu protect gareeyo ama uu ilaaliyo inay koronto badan gelin.
marka waxaan sameynaa pin 13 oo positive ka imaanaysay pin 13 ka imaanaysay ayaa waxaan ku xireynaa resistorkii breadboardkana sidaa u jeedaan laymankan saana waa isku wada xiran yihiin marka haddaa halkaas aad kaga xirto signalkii halkaa waa uu gaaraya marka halkaas waa isku xiran yihiin wuxuu ku xirmayaa anodekii oo LED-ga wuxuuna ka imaanayaa kasoo baxaya markuu nalka daaro korontada markay nalka daarto waxay kasoo baxaysaa cathodkiina wuxuu tegayaa ground sidaa la socotaan cathodka waa negative iyo ground waa isku xirmayaan marka circuitkaas ayaan rabnaa inaan dhisno waxaan rabnaa LED-gaas in uu daarmo 1 second uuna damo 1 second sidaan ku samayn lahayn waxay tahay first of all marka ugu horeyso pin 13 waa inaan ka dhignaa inay tahay output maadaama uu signal ka soo baxayo 5 volt ka soo baxayo waxaan leenahay output ayuu noqonayaa marka waxaan leenahay pin mode 13 output markaan aan ka dhigno pinki output aan ka dhigno now marka waa ku qori karnaa waxaan ku qoraynaa digital right 13 oo ah pinkii waxaan rabnaa inay noqoto high ee noqoto 5 volts markaa saa aan sameyno 5 volt halka aan ku qorno LED-ga waa uu daarmaya marka waxaan sameynaynaa markuu daarmo 1 second ayaan sugaynaa marka 1 second ayuu daarnaanayaa haddana waxaan sameynaynaa digital right 13 low pinka naftiisa aan waxaan ka dhigaynaa markaan low ama 0 aan ku qoraynaa haddaan 0 ku qorno wax voltage ah ama koronta ma tegayso LED-ga markaa waa uu damayaa marka haddana waxaan sameynaynaa delay kale waxaan sugaynaa 1 second ayaan sugaynaa marka circuitkaas ayaan rabnaa inaan dhisno anagoo isticmaalayno tallaabadan hadda aan ka hadalnay ayaan isticmaalaynaa Arduino markii softwarekiisa aad daarto waxaa kuu soo baxayo pictureka u jeedaan laba qaybood ayuu u qaybsamaa qaybta hore waxaa la yiraahdaa setup qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa loop void setup void loop marka codeka setupka waxa uu ku leeyahay put your setup code here to run once macnaheedu wax kale ma aha dhig codekaaga dejinta halkan waa codeka aad dejinayso hal mar keliya si aad u kiciso mar keliya si aad hal mar keliya aad u isticmaasho marka codeka aana isbedelayn ayaa halkan gelinaysaa void loop waxa uu ku leeyahay qaybta kale wuxuu ku leeyahay put your main code here to run repeatedly halkan ku deji codekaaga ugu weyn si aad markasta uu u socdo marka codeka markasta oo mainka ah oo aad isticmaalayso oo kuu shaqaynayo halkan ayaa gelinaysaa loop ayuu noqonaya maanta dhanna waa uu ku noqnoqonaya codekaas ayuu microcontrollerka ku qabanaya waxaan kaloo sameynaynaa waxaan tegaynaa toolska waxaan fiirinaynaa boardki in uu ku xiran yahay sidaan hore idinku soo sheegay waxaa u baahan tahay board Arduino Uno waa inuu noqdaa boardkaas waa inuu noqdaa Arduino Uno haddaa gadato nooc kale oo Arduino ah halkan ayuu ku jiraa liiskiisa taana aday kugu xiran tahay tan kale u baahan tahay waxay tahay portiga wuxuu isticmaalayaa meesha uu communicationka la sameynayo aniga waxaan isticmaalayaa Macna wuxuu ku tusayaa def US modem numberkaas oo kale wuxuuna laakiin kuu sheegayaa Arduino Genuine Uno inuu ku xiran yahay comportigaas uu ku xiran yahay markaad isticmaalayso PC halkan wuxuu ku tusayaa com1 com2 something like that ayuu ku tusayaa marka la soco haddana codekii ayaan qoraynaa sida hore idinku soo sheegay waxaan rabnaa pin 13 in aan ka dhigno output marka waxaan sameynaynaa pin mode ayaan leenahay pinka arabna waa 13 waxaan rabnaa inaan ka dhigno output sidaan hore idinku soo sheegay marka taa wuxuu noqonayaa pin 13 ayaa wuxuu noqday outputkii ayuu noqday codeka mainka ah waxaan u baahannahay in aan pinkaas marna aan ka dhigno high marna low aan ka dhigno waana digital pin marka waxaan leenahay digital right ayaan leenahay digital right markaan dhahno waxaan rabnaa pin 13 inaan ka dhigno high aan ka dhigno
waxaan kaloo rabnaa markii high oo noqdo uu daarmo waxaan rabnaa inaan ku sameyno delay oo ah 1000 milliseconds 1000 milliseconds waxay la mid tahay 1 second ayay la mid tahay sug 1 second 1 second halkaana waxaan dhahnay pin 13 ayaan waxaan ka dhignay 5 volts ayaan siinay marka waxaan u baahannahay maadaama 1 second uu nalkii uu daaran yahay waxaan rabnaa inaan markaan aan low ka dhigno marka waxaan sameynaynaa waxaan ku qoraynaa pinkii digitalka ahaa waxaan ku qoraynaa 13 pinkii ahaa waxaan ku qoraynaa low ayaan ku qoraynaa markaan low ka dhignana wuxuu noqonayaa pin 13 wuxuu noqonayaa halkan waxaan hilmaamay pin 13 waxa uu noqonayaa 0 volts ayuu noqonayaa wuxuu noqonayaa waa damaya markuu damo waxaan rabnaa 1 second inuu damsanaado marka waxaan leenahay delay 1000 ayaan leenahay milliseconds 1000 millisecond waxay la mid tahay 1 second marka waxaan leenahay sug 1 second marka programkii waa complete way marka programka waa qornay haddaan ku celiyo pin modekii waxaan rabnaa pinka digitalka 13 ahaa inuu output noqdo programka isu bedela hal mar kaliya waxaan leenahay pinkaas waa inuu output noqdo programka isbedelayo marka waxaan sameynaynaa digital write 13 high delay aan gelinaynaa digital write low ayaan ka dhigaynaa delay 1 second aan gelinaynaa marka programka intaas ayuu maanta oo dhan ku laalaabanaya intaas ayuu marna high ka dhigaya 1 second uu sugaa marna low ka dhigaya 1 second uu sugaa saas ayuu ugu laalaabanaya programkaas haddana waxaan sameynaynaa circuitkii ayaan xirxiraynaa waxaan soo qaadanaynaa LED-ga sidaa la socotaan lugta dheer waa anodekii waay marka LED-gaan gelinaynaa waxaan ku xiraynaa kale resistorkii oo ahaa 220 ahaa ayaan ku xiraynaa isagana resistorka wuxuu gelayaa lugta anodeka ayuu gelayaa oo LED-ga ayuu gelayaa lugta ka imaanayso resistorka ka imaanayso waxay tegaysaa pin 13 ayay tegaysaa lugta ka imaanayso cathodeka oo LED-gana waxay tegaysaa groundka ayay tegaysaa sida schematic aan idinku tusay marka circuitkii waa oo complete weeye haddana waxaan sameynaynaa programkii ayaan diraynaa sidaa u jeedaan LED-gii waa uu daarmay 1 second ayuu damay 1 secondna waa uu daarmay marka meesha programkaas waxaan ku baranay pin modekii sarabka waxaan ka dhignay output programka intiisa main loopka loo yaqaano qaybta weyneyd waxay ku celcelinaysaa marna waxay ku qoraysaa pin 13 high 1 second ayuu sugayaa marna waxay ku qoraysaa low 1 second ayuu sugayaa marka programka loopkaas intaa ayuu maanta oo dhan uu ku celcelinayaa shaqadaas ayuu kuu qabanayaa marka taana intaa ayuu ka eg tahay